waxa maanta aad farxad nagu ah inaanu haddana ururka suxufiyiinta Soomaaliya Sooljo aanu xabsiga ka soo dayno wariye Cabdimaalik Musaal Doon oo muddo cishaa ku jira xabsiga waxaan u mahadnaqaynaa oo arinta qayb ka qaatay barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Aadan Qabo saabka xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Diriixid gudoomiyaha sare maxkamadda sare barasraada Xajali mas'uuliyiintaas oo dhamaantood gacan ka geystay sideynta ay noo ogolaadeen dhammaan mas'uuliyiintaas aad ayaan ugu mahadnaqaynaa waxaan leenahay Ilaahay khayr ka siiyo waana noo guul maadaama xabsiga ka soo deynay wixii kalena aan dibadda jooga si sharcigu noo dhigayo ayaan istifaaci doonaa dhammaan suxufiyiintu meel kasta ay joogaan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku baraarujinaa inay noqdaan kuwa ilaaliya anshaxa saxaafadda iyo xeerarka saxaafaddu leedahay kana foojignaada wax kasta oo dhibaato u keenaya naftooda halisna gelin kara maanta isniina aan filay taariikhda inta 26 bisha koobaad 2016 hadda waxaan ka soo baxay xabsiga dhexe magaalada Burco runtii waxaan halkan fursadan Hon Cable TV siiyay aan uga mahadcelinayaa Kaysa Axmed Digaale oo ah gudoomiye ku-xigeenka ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Soolja oo runtii arrinkayga siideynteeda qayb libaax leh ka qaatay aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa maamulka gobolka Togdheer gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Ibrahim Qabo iyo ku-xigeenkiisa Maxamed Diriixid iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay soo deynteeda